حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. waxaa laga wariyey abi saciidin alkhudriy wa abu hurayra, ilaahay labadaba raalliha ka ahaadee, in ay ka wariyeen nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam in uu yidhi: kuma dhacdo qofka muslimka ah dhacdo ama daal ama jiro ama walwal ka haya wax uu filayo ama uu doonayo, ama tiiraanyo ka haysa wax ku dhacay oo aan fiicnayn, ama dhib cid kale u geysato, ama wax qalbigiisa amaba naftiisa cidhiiri dareenkiis geliya, xitaa ha ahaato qodox lagu mudaye oo aan alle ugu dhaafin dembigiisa qaarkiis. waxaa wariyey xadiidka bukhaari iyo muslim. xadiidka maxaa laga faa'iidaysanayaa? 1. dhibaha qofka mu'minka ah ku dhaca waxay ka nadiifiyaan dembiyada. 2. waxyarba ha ahaatee wixii dhib adduun ah oo qofka haleela waa u dembi dhaaf. 3. qofka waxaa ku habboon in uusan kulmin dhib uusan celin karin oo ku dhacaysa iyo ajar isdhaafin. 4. waa nimco alleh in wax kasta oo ku dhaca ay qofka dembidhaaf u yihiin. 5. walwalka iyo u sabri waaga dhacdadu waxay qofka ku siyaadisaa dhibta, ajarkana way ka burisaa, ciqaabna waa u keentaa. 6. ku sabridda musiibadu qofka way u fududaysaa dhibka, ajarkana way u siyaadisaa. 7. iyadoo ay noocyo badan yihiin waxa qofka ku dhaca uusanna celin karin oo mar jirkiisa, mar bulshadiisa, mar ehelkiisa ay dhibku ku dhacayso oo aan la koobi karin, ayaa haddana xaaladihiisa oo dhammi ay yihiin khayr, oo wixii dhib ah wuu u sabraa, markaasay khayr u noqotaa. wixii wanaag ahna alle ayuu ku mahadiyaa oo khayr ayay u noqotaa. 8. laba faa'iido ayuu qofku helayaa. qofka waxa ku dhacaya wax ka khayr badan ayuu ku helaa, oo dunuubtiisa sidii geed caleen daadshay uga daadanaysa markii dhibi ku dhacdaba. hadduu alle dartii ugu sabro oo ka ajar tirsadana, ajar baaba looga qoraya. 9. alle wuxuu dadka sabra u ballan qaaday in si aan xisaab lahayn ajarkooda loogu oofin doono. 10. jannada dhexdeeda ayaa sabrayaasha malaa'igtu ku salaantaa oo ugu hambalyaysaa sabarkooda dartiis. 11. qofku wuxuu dhibta ugu sabrayaa raalliga uu ku yahay qadarta alle ee ku dhacday. 12. qofka khasaarayu waa qofka ku sabrin waayey naftiisa dhibaha iyo mashaakisha ay marayso, oo iimaanyaridiisu saajiso in uu dhacdooyinkaas kaga baxo isagoo naftiisa tarbiyeeyey, ku qancay qadarta rabbi, kana faa'iiday ajar badan. 13. iftiinka xadiidkan waxyaalaha lagu ifsan karo waxaa ka mid ah: 1. sida alleh subxaanahu wa tacaala u naxariis badan yahay oo dembiyada aynu shaqaysannay inoogu samaynayo sababo uu inoogu dhaafo. 2. muhiimadda ay leedahay in qofku wax qabsado oo dhaqdhaqaaq sameeyo. alle waa awoodaa in uu inagoon waxba inagu dhicin uu dembiyada inoo dhaafo, laakiin innaga ayaa la ina tarbiyaynayaa.
saddex yaraanta awoodda aynu leenahay iyo in aynu addoommo alle nahay oo uuna maamulo. afar tabarti yaqaan waa taagsadaaye in ay muhiim tahay in aynu tabarteen tillaabsanno oo ismoodin wax aynaan ahayn ee aan nafta runta u sheegno, awaamirta allana ka dambayno. inta aynu xadiidkan xiga ku kulmayno waxaynu idinku dhaafaynaa ammaana allah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين